بسم الله الرحمن الرحيم كلتي وعن ونكسن داوديال ومناسبة قرن سديد يتبين كمي waxay ka mid tahay wadamada Sheekh ayaan ku suganahay imka waxaana loo dabaldegay xuska qaran state kamay iyaga oo dhalinyaro aad u daayir ay ku xadleeyeen calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa imka si toos ah nooga daawanaysa telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyaga oo ay jiraan ummad fara badan oo isugu soo baxay sidii ay u weyneen lahaayeen xuska qaran state kamay barnaamijkeena hordhiciisa iyo daawasho wanaagsan كرجوا هتجيني لقى نمر كتب الله صار مقرني بركة دباسة أي مبادر كلام كلامي واحد يفرض دولة حفلتنا ما يركض من الشيخ إبراهيم عبد الله عبسي أيام كسود ويليا إنه كلمة فريتانك إنه وحوجنا إنه طول مرة ما لتقيمه هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka hore mahad ilaahay baa iska leh waxaan jeclahay in halkan uga mahadnaqo guddidii qabanqaabada xafladan maanta aynu joogno ee dhiinmey soo qabanqaabisay ee uu madaxda ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Mastar Cabdi Cartan iyo intii la socotay rag iyo dumarba mar labaadkana waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo wasaaradaha waxbarashada maamulkooda iyo macallimiintooda ardaydooda iskuullada kala duwan maamulayaashooda dhammaan inta wasaaradda waxbarashada saaka halkan ka soo qayb gashay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan jeclahay inay sanad walba sanadka ka dambeeya ay ka sii wanaagsanaato maxaa yeelay dhiinmey wax kale kuma xasuusanno marka laga soo bilaabo 1991 shirkii burco ay ku qaadatay Somaliland laba qodob ayaa halkaa inoogu jiray qodob waxa ku heshiiyey Somaliland dadkii u dhashay ee wada deganaa ayaa ku heshiiyey inay dawlad samaystaan qodobka labaadna wuxuu ahaa madaxweynihii u horeeyay iyo madaxweyne ku-xigeenkii u horeeyay ayaa halkaa lagu soo magacaabay Somaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali iyo waxay kala ahaayeen Xasan Ciise waxa halkaa inooga bilaabatay Somaliland dawlad la yiraahdo ilaa maanta aynu joognaa waxay soo socotay maalinba tallaabay qaadaysay maamulka ka dambeeyay wuxuu ku sii darayay horumar buu sii gaarsiinayay waxaynu maraynaa maanta waa qiyaas karaysaan shantii sanadood ee u dambeeyay ee imika madaxweynaha u dambeeya Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu hayay inta isbedeshay inta kaabayaasha dhaqaalaha horumartay inta waxbarashada horumartay inta jaamacado inooga baxday inta iskuulle gaara inoo samaysantay iyo horumarka ballaadhan ee jidadka iyo caafimaadka biyaha Allahumma salli ala Muhammad ay ka kooban yihiin isgaarsiinta dhiinmeydii hore malaa sheekh waxaan malaynayaa inaanay shirkad la jirin maanta shirkadii leydku halka way maraysay dabaaldegii ka qayb gashay shirkadda badar iyadoo ku hambalyeynayna horumarku waa intaa iyo iyadoo looga sii dhawaado aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa gaar ahaan hooyooyinka ilaa saaka waa berigii durbaanka tumayey وسبريسون بركة دكسيكا صوص ويسوينا كلمتي سالكا كوردن دور بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت فرحان وين أي ينتهي إن الفرسد هلا عن كلمة ير إلى هذا كلمة إلى سواء هوية أنا عادي يا عاد تدوينه واحد دور اللي يرتاح الشاقة ما أنت عيد النتري أخو الخصبتي oo soo baxayna tiri ma jirto nin waliba waxa weeye wuxuu dareensan yahay qiimaha ay leedahay maanta 18 May oo 25 guuradeedii aynu maanta u soo baxnay waxaanu soo gaadhnay oo aan u sheegay qoladayada soo xalayto ilaa khasbi jiray October-tii tanina la soo khasbay ee nin waliba uu dareensan yahay qiimaha ay iyo dhibaatadii uu soo maray markii loo soo dagaalamay xornimada waxaan aad iyo aad doonayaa ugu mahadnaqo bulshada reer Sheekh oo dhan waxaan doonayaa halkan inaan ku soo dhaweeyo wasiirka ku-xigeenka iyo agaasimaha iyo degmada maamulkeeda madaxdeeda iyo bulshadaba iyo shacabka oo dhan waxaan mid kalena aan ku sii yardaranayaa hamoodina arrintan ariya على كهوة لا إله إلا الله محمد رسول الله قال يا مسلم وحدة سكرية الآن ما سيهاي مامولها دكسي سريسوس مستر عادل موسى الإبن كان واحد يا معالي المصرية والشبعان بقعي صلى الله عليه وسلم وكان لقى دكسي سري محمد سيلا قابل يسيقول لك المدينة وقابل يسيقال كان كورا دون بسم الله الرحمن الرحيم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الإخوة الكرام، الحفل العظيم، الإخوة الصومال لام، مرحبا بكم في هذا الاحتفال الكبير. نحن مدرسي البعثة المصرية التعليمية، نحن مدرسي المدرسة التعليمية في مدرسة محمد شرقابي الثانوية كمدرسين للغة العربية. أحييكم وأرحب بكم في هذا اليوم، يوم 18 من مايو، وهو يوم فارق في حياة الصومال لاند، يوم يدل على العزة والنضال والكفاح. نحن نشارككم هذه الفرحة من قلوبنا وأفئدتنا وسعادتنا، وإنه ليوم عظيم أن نكون معكم بعد أن تركنا مصر وأتينا إلى هذا الوطن وهو الوطن الثاني لنا، أرض الصومال لاند. فمرحبا بكم وهنيئا لكم بهذا اليوم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. aad baynu ugu mahadnaqaynaa ugula ducaynaynaa macallinkeena masriga degmada sheekh ka tirsan hambalyada uu siiyey diin may maalinta si fiican loo ugu duceeyey. waxaan imika ku soo dhaweynayaa Saleebaan Haybe Soos, arday Soosa oo gabayar halkan inooga tirin doona oo khusaysa maalinta 18 May. dabcan dalaaliyo nimca iga buux dooman baa dhaansana nimca wada dhaansanahay daba wax la qooto iyo macdan la dalaaliyo dooman baa iga buuxo nimca wada dhaansanahay nin bada dheer waa kawuun ninkii laash dhaqaajiya dhaxsuu soo buuxiya dheeftiisana uu helaa birtayda barbaadaya ninkii iga dhoofayo waa ninkii taariikhda uu la hadlaya ninkii iga dhoofayo kollay dhib mutaysatay nafsaan dhexda kuugu xidhay haddaad dhimatana ogow adaa daragaa isdhigay oo nimankan badaha ku maranaya tahriibaya kasakow naxdinta ay waalidkood ka naxayaan dhulkuna uu ka naxaya waayo dhulkuna xaq ayuu ku leeyahay marka xaqii dhulka xaqii waalidkood iyo xaqii dhulkuna uu la socdaa dhulkuna wuxuu leeyahay kollay dhib mutaysatay adiga daraga dhibtood mutaysatay nafsaan dhexda kuugu xidhay waliba isaaga xidhmaayo buu leeyahay haddaad dhimatana ogow adaa daragaa isdhigay dabeedabannada qabsaday dhawaaqii baxayadaan dhagaasi israaraasho markii aan dhuuxayan dhawaaqa u dhaagacashana ilmaa dhawannada u timi dhulkii wuu ooyayaa dhambaal huna buu sidaa dhiilluuna xambaarsan yahay intaa yurub dheeraa qaxoonti dhex yowrartay intuu dhibatuu og yahay intaa saxaraha dhexyo suudaan aan dhaafinay cawaanku dhaqduu og yahay intaa dhabta loo qashay intay dhibirrada heleen dhuuntaa laga wada lisiyey intaan dhimaan buu og yahay xaqiiqad dhabuu og yahay wuxuu dhacayuu og yahay ninkii dhayal moodayana wajaaf la dhaqaajiyo wajaaf la dhaqaajiyo. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدينها غير شيخ مدحنا يحل بالنا وزارتها كالدوني اسكول لنا يا شعب كينا جمهورية الصومال لاند وحنا لها مناسبة 18 ماي همبليو ومالين النقوين ومالين قرنمدين نكوين ومالين كسنتن بيق الجيسيال بدن ودلك كبحي ومالين كسنتن أقوم بدن وأبياشد كواي ومالين كسنتن hooyooyin ku waayay hengaf ku qaaday waa maalin ku suntan hooyooyin kale oo ku goblamay oo inamadooda ku waayay runtii sidaasay noogu culus tahay maaha maalin fudud waxaad ka arkaysaa halkan sidii hore looga sheegay ayaamo badan baa laysu soo bixi jiray reer sheekhow ayaamaha laysu soo bixi jiray waxaa ka mid ah 21 Oktoobar oo la mari jiray dawladii Siyaad Barre iyo rajiimka inaga kacay oo dadka qasab lagu soo saari jiray maryaha loo iibin jiray qasab lagu soo saari jiray ciidan qasab xoog la xiri jiray qofka soo bixi waaya maanta waxaad arkaysaa rabitaanka shacabka Soomaaliland in calanka idinku iibsateen oo maryaha idinku iibsateen oo waqtiga idinku horeysaan inuu calankaasi go'aan inaga yahay mar dambana aynaan xamar isku noqonahaynin arrinkaana shaki baa ka jira
arrinkaa mashaki baa ka jira waxaynu leenahay waynu kala digarragnay oo diina waynu kala gedisanay walaalaheenna waxaan leenahay halkiina allah idin barakeeyo idin hagaajiyo nabadgelyo allah idinku siiyo annagana halka iyaga allah noo barakeeyo nabadgelyaha nagu siiyo waa salaamayaa dhammaan madaxda heer degmada sida duqa degmada ku-xigeenka duqa degmada madaxda heer qaran ee uu ka mid yahay agaasimaha guud xubnaha xisbiga xubnaha golaha deegaanka dhammaan waxbarashada waan aad iyo aad u jecelahay sida quruxda badan ay isu soo agaasimeen waa hadday yihiin waxbarashada degmada iskuullada gaarka loo leeyahay iskuullada waxbarashada iskuulka soos iskuullada kale dhammaantood macallimiinta masaarida waxaan kaloo iyaguna salaamayaa bahda caafimaadka oo si qurux badan iyaguna uga qayb galay dhammaan ururada bulshada dhammaan kuwa korontada aad iyo aad baan idiin salaamaya waxaan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad idinka mahad celinayaa sida quruxda badan ee u muujiseen shucuurtiinna sida u muujiseen dareenkiinna ku qotobo maalinta eedhiin mey waa maalin inoogu fadhida qiimo gaar ah waa maalin aynu ka dhandhansanayno boqolaal kun oo qof oo u soo halgamay qarankan jamhuuriyadda somalilan waa maalin ay ku suntan tahay la soo noqoshada qarankeenna ee jamhuuriyadda somalilan waxaan leeyahay waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa sida dareenkiinna u muujiseen haddaad tihiin ardayda haddaad tihiin mas-uuliyiinta haddaad tihiin ururada bulshada haddaad tihiin abwaanada halkan ka heesayey si qurux badan oo muuqaal leh oo ay dareen ku jiro oo wadaniyada ku jirto ayaa u muujiseen dareenkiinna waan filayey sheekh iiguma hor aha waa magaaladaydii waxaan jeclahay sidaa ay u xusteen iyo si ka badan ba inay u xustaan eedhiin mey waa magaalo lagu yaqaano magaalo cilmi waa magaalo aqooneed waa magaalo soo jireen ah waa magaalo wakhti badan iyo madxafada ingiriiska taallo oo taariikhda lagu barto caalamka waxaan leeyahay ducadii iyo waalidiiba shiikhaa iga horreeyo oo dhammeeyey waxaan maanta aan u sheegayaa gobolka saaxil haddii ilaahay yidhaahdo degmadii berbera waxay noqonaysaa geetweyga afrika waan idinku bashaaraynayaa waxaa ogtiin inay dowladdu heshiis la gashay shirkadda la yidhahdo d b well shirkaddaasi waxay inoo soo kordhinaysaa boqolaal kun oo shaqaale ah waxay inoo soo kordhinaysaa camal waxay soo kordhinaysaa dekadoo la ballaadhiyo waxay soo kordhinaysaa aqoon waxay soo kordhinaysaa infrastructure waxay soo kordhinaysaa shaqo waxay soo kordhinaysaa horumar waxay soo kordhinaysaa in afrikoo dhan laga quudiyo afrikoo dhan in berbere laga quudiyo ayay soo kordhinaysaa waxaan u sheegayaa shacbiga reer sheekh inay maalin maalmaha ka mid ah haddii heshiiskaasi uu sidiisa ku socdo inay sheekh noqon doonto goob loo soo dalxiisto oo muddo dhow oo aan 5 sano ka badnayn waxaan leeyahay waxaan idinku wacyigelinayaa carruur aqoon-yahan duqayda waxbarashada dhammaantiin inaa heshiiska garab gashaan inaa u aragtaan inuu yahay jiilka soo baxayo mustaqbalkiisii waa ogtihiin dubay weel waxay heshiis la gashay hadda ka hor jabuuti waa ogtihiin halkay gaadhsiisay maanta innagaa fursad u helnay fursaddaa waxaa la doonayaa inaad ka qayb qaadataan inaad soo dhowaysaan inaad u aragtaan inay tahay shirkad inoo horseedaysa in aynu gaadhno wakhti dhow inaynu gaadhno dad camal haysta dad isku filan dhaqaalo fiicani soo galo iyo inaynu noqonno geedweygii laga gelayay afrika waxaan ku soo gebagabaynayaa waxaan aad baan idinka mahad celinayaa aad baan mas-uuliyiinta degmada ugu mahad celinayaa gabagabada barnaamijka waa habeynta iyo isku dubaridka Faysal Aadan waa soo jeedinta aniga xamse qurbaaniya dhammaantiin waxaan uga tegnaa sida iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xaqiiqadu waxay
yahay kumaan helin kumaan helin xodxodashee xinjir baa u qubato waa loo xabaalgalay حركية حفلة أسطانيو حلي باو قاري حس كمي وصبحا حرميو دبال ديقا حس كمي وصبحا حرميو دبال ديقا